هاي لا يابين ولا الياب cuntada aan karinayo badanaa cid cunto gurigeena ma laha. I don't like to cook, so qof jikada igu aamina ma leh. Wow. Hi. Kala Anisa dhawey. Oops, waa kana raba inaan maanta aan ku qadeeyo asoo badan hadeertaan meeshaan weli ka soo bixooyaa ubaxayaashaaneeta dhan waxay isku bedeli doonaan qajaar oo cusub insha Allah. meeshaaneetan sida videoga shalay aan igu sheegay asagoo 3 different plants meeshaan igu jiraan qajaar oo geedo ah oo kala nooc meeshaaneet igu jiraan halkan. So insha Allah kanaan ku soo qadeynayna. So let's go upstairs. Take your coughing ass out of here, man. I'm trying to. Contaminating shit. Sure am. Yo, this whole time after I harvested these yesterday, all I can think about was like them glazed and spicy ketchup. Fry them. Like you can do like boneless wings. Yeah, you do that on a couple of the ones I have. And I'm gonna do the honey thing. So you know, remember the fried chicken I made, Korean fried chicken? Yeah. We have gochujang. Let's do that. Yeah, We have white rice. I'm an air fry mine. You do that recipe and I'll eat that and I'll eat my own. We gotta fry it first. You gotta make it crispy using cornstarch and flour. We don't have cornstarch. Yes, we do. Okay, so what I'm gonna do is, this is just chili powder. Bris عاد بس أنا أقطعه, so just going to and then I'm gonna use a little bit of this thing right here. Alright, just a little bit of oil. Kana cusbo badan leh, so markaa cunaya dhadhaminaya inay cusbo fiican ay leedahay kaleeto. This is an air fryer. Okay, geedkan inta shabaq uu leeyahay, so halkaan aan la gelinayaa. Kan dabka kuma jiro. Okay, so let's just do 15 minutes. Power ka kor u qaadayna haddaan rabno, and then time kana kor u qaada haddaan rabo. So I'm just gonna do 14 minutes for 350 degrees. Markuu diyaar yahay, it'll beep for me. I like how crispy they turn out. Okay, get qolofyaashaan inta hadeertaan aan fiiqay, we're gonna save them for composting. meesha qashinka ku ridi lahayn kuwaaneta markaa banaanka ay geysid ee bolalaan carro isku bedeli doonaa in the future. So and waqtigii carrada isku bedelayaan wallahi it's not even gonna take long. haddii meel qorax leh ay helaan maybe 3 months. Okay, so meel aan dhigi doonaa. So for now, let's get back to this. Hajalaha, this is just a cucumber. Get كانت عصبة إيه وحليه هي بسباس. صار كذي إذا صار عمل لعنة. هجعله أنا بسباس سرعة أنا أقدر صده.
بريس على dhinaca ka saarnaa kusoo dhawaada my lazy lunch shalay waa aragteen aan malaynayaa qudaartaaniita dhan beerta kasoo saara shalay ilaa hadeertaan weli ma jarjarin filinjeerkaa laga rabaa inaan gelin insha allah caawa ka shaqeyn doonaa waa aragteen the cauliflower actually let me go grab the actual vegetable cauliflower kaanetane beertaan isaga shalay kasoo gure caleemihiisana waa kuwaana meeshay weli ii tuuran yihiin filinjeerkaa laga rabaa inaan geliyo insha allah waxaan jeclahay markii aan jarjaro ayagoo diyaar oo dhaqan inay filinjeerka ku jiraan sidoo ma arkin oo qofkii raba inuu wax u karsado inay diyaar u yihiin but anyways waa aragteen hadeertaan kuwaan aan jarjartay kabacdi aan maxaa la dhahaa waxaan ku kariyay this thing called air fryer saliid badan ma isticmaalin maxaa la dhahaa dabka maba sidaas uma saarin because I'm using this thing oo ma arkina crispy camal uu ka dhigaya it's like fried chicken camal uu ka dhigaya a side of white rice qajaarkii aan beerta aan kasoo saartay this is my lunch my lazy lunch qofaa su-aal wuxuu i weydiiyey I think in the comments from Facebook, TikTok, mise YouTube-ka laftarkiisa su-aasha laga soo weydiiyaa waxay ahayd waayo beerta ay gurigaada beerta gurigaada muhiim u tahay haddii aan ka jawaabo the reasons or why ay muhiim u tahay inaan guriga wax ku beerto mise ani ahaantayda why ay important ay u tahay guriga markaan wax ku beeranayo are these 3 reasons. 1, fresh vegetables oo guriga ka helaya beertayda ka helaya I should say. Second reason, exercise. maanta dhan wax lay qodooya maanta dhan waa dhididooya I'm a very lazy person guriga kama bixi so haddii oo maanta dhan shaqada maanta dhan aan kasoo shaqeynayo aan maanta ku qadeyn karo you know it's the best thing ever. The third reason is I want to be alone marka banaanka ka shaqeynayo qof i kor taagan ma leh waa taqaaniin Soomaalida markay guri isla wada degan yihiin cidda markay weyn tahay maanta dhan waa la iska kor buuqbuuqooyaa laakiin markii oo banaanka wax ka shaqeysanayo mise banaanka beerta aan ka shaqeynayo wallahi I am in my free zone qof ay dhahayo sucaaday this sucaaday that su'aala qabaa iyo waxaan ii sameey ma jirto hay la yaabin walaalayaal cuntada aan karanayo badanaa cid cunto gurigeena ma laha I don't like to cook so qof jikada igu aamina ma leh laakiinse walaalahey gabdhaha iga weyn gabdhaha iga yar iyo hooyaday masha Allah they are amazing cooks. Tomorrow I think walaashay event qabto cunto dhan Ramadan camal jikada lagu jiri doonaa beri insha Allah so I'm gonna share her cooking tomorrow a little bit but aniga ma arfino inaa shaqaysta waay aan iska dhiganaa haddii kaleeto wiil Soomaali haddii ay guursado wiil Soomaali haddii ay guursado wuxuu dhahanaa hoy waxaan qaladan wax ma cunayo wax fiican ii kari so inaan wax barto waay but anyways saaxiibayaal this is my lunch let's get back to gardening.